ku-xigeenkii hore ee xeerlayaha qaranka Soomaaliya garyaqaan Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaare Roble uu sameeyay qalad siyaasadeed oo weyn kadib markii uu ogolaaday inuu wada hadallo la galo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dr. Mukhtaar ayaa sheegay in ilaa iyo hadda uu la yaaban yahay waxa meesha yaallo oo ay ka wada hadlayaan Farmaajo iyo Roble, sababtoo ah buu yiri Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu haystaa laba qodob oo dastuuri ah oo cad. marka aad fiiriso qodobkan 103 ee dastuurka waxaa ku qoran xukuumadda xilgaarsiinta inta u dhaxaysa taariikhda doorashada guud iyo marka Ra'iisul Wasaare cusub la dhaarin doono. Ra'iisul Wasaarihii hore ee xilka hayay iyo golihiisa wasiiradu waxa ay sii haynayaan xilka, waxayna fulinayaan waajibaadkii caadiga ahaa ee dowladda si xilgaarsiin ah. sidoo kale qodobka 19 ee dastuurka ee muddaxileedka madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka wuxuu xilka haynayaa muddo 4 sano ah oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo, sida ku xusan qodobka 96 ee dastuurka ayuu Dr. Mukhtaar Abuukar. marka waxaan la yaabanahay maxaa lagu wada hadlayaa, waxaa la yiri af magaalo warqad ayuu ku yaalaa qaanuunka iyo dastuurka waa in lagu dhaqmaa haddii la wada hadlo. waxaa micnaheedu yahay wax baan kula qaybsanayaa, marka in la wada hadlo maba ahayn qaanuunka iyo dastuurka ayaa fasiraya awoodda qof kasta ayuu sii raaciyay. Dr. Mukhtaar ayaa intaa ku daray in Farmaajo waqtigiisu dhamaaday 7 bil ka hor, waxa kaliya ee uu haystaana ay tahay xushmad inuu kursiga ku simo madaxweynaha kale isla markaana aanu wax shaqo ah ku lahayn howlaha dowladda. haddii aan dastuurka la xushmayn oo Farmaajo weli ay ka dhaadhacsan tahay inuu yahay madaxweyne, dastuurka hal la turo oo markaasi wadanka madaxweynaha loo yeelo si degdeg ah ayuu sii raaciyay. waxa uu sheegay in xitaa haddii Farmaajo uu haysan lahaa sharciyad aysan dastuurka gaar ahaan qodobka 9 ee awoodaha madaxweynaha meelna uu qoray inuu awood u leeyahay inuu iskiis u magacaabo iyada oo markaasi ayna jirin golaha wasiiro. Dr. Mukhtaar ayaa ugu baaqay Roble inuu shaqadiisa wato isla markaana aanu joojin warka markaasi ka soo baxaya Farmaajo dhig aan jalaq u siinin. hadalka Dr. Mukhtaar ayaa imaanaya iyadoo xiisadda u dhaxaysa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ay cirka isku sii shareerayso. xiisadan ayaa dhalatay kadib markii uu soo ifbaxay kiiska sargaad Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd gabar u shaqeynaysay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA, taas oo la waayay 26 Juun meel ay jaaniyo dhigtay. garyaqaan Mukhtaar Abuukar ayaa arrimahaas isaga oo ka hadlaya waxa uu yiri waa ku salaamaya adiga iyo bulshadana dhageysanaya meel walba ay joogaan. runtii waxa weeyaan waxaan ka hadlayno waa dastuuriyan wax ku qoran oo dastuurka ku qoran yahay iyo qaanuunka wax uu dhigayo. qodobka hadaad fiiriso dastuurkeena 103 waxa lagu leeyahay xukuumadda xilgaarsiinta iyadaa duwadayso awoodda iska leh wareejinta xil magacaabista xilka qaadista doorashooyinka gaarsiinaysa ilaa xukuumad kale ka imaanayso. hadaad fiiriso qodobka 91 ee dastuurkeena wuxuu ku leeyahay madaxweynaha muddaxileedkiisu waa 4 sano oo kaliya. aniga waxaan la yaabanahay wada hadalkan maxaa lagu hadlaa af magaalo waxaa la yiri warqadu ku yaala qaanuunkan iyo dastuurka waxa uu yaalo in lagu dhaqmaa. wada hadal hadii la yimaado micnaheedu waxa waaye waxbaan kugu qabsanaya. maxaa keenay hadal in la wada hadal ma eembo wax wada hadal la dhaho ma jiro. qaanuunka dastuurka qof walba fasiraya awoodiisa waxa uu leeyahay. wada hadalka sideeda ku qabso ku qadimeedu way qof hadaan mar wada hadashaan wax ka tagaya imaanayso. waxa la iloobayaa wax dastuurka qoran qaanuunka waxa uu qoran madaxweynaha muddaxileedkiisa 4 sano oo kaliya ee February 7 ugu ekeed ilaa ay madaxweyne kale ka imaanay xushmadu waxayd inuu ku simo ku wareejiyo hantidii oo loo dhiibay iyo waxa uu soo qabtay iyo waxa uu xafiis uu yaalo inuu markhaati ka aado ku wareejiyo sida asaga Xasan Sheekh ugu soo wareejiyo kale. laakiin madaxweynaha xafiiskii oo fadhiya ma awood dastuuri uu leeyahay. awood dastuuri 4 sano oo kaliya uu siiyay. awood dastuuri hadda waxa iska leh xukuumadda Ra'iisul Wasaaraha hogaaminayo. xukuumadda fulinta iyada iska leh ayaa howsheeda jirta. baarlamaanka muddaxileedkiisu wuu dhamaaday. madaxweynaha muddaxileedkiisu wuu dhamaaday. xukuumadda ayaa 103 wuxuu leeyahay iyadaa xilgaarsiinta iska leh iyadaa doorashooyinka xilka qaadista awaamiirta howlaha dowliga oo dhaqdhaqaaqa soconaya oo dulmaameedka xukuumaddaana wadayso. wax loo wada hadlayaan garan waayo aniga. heshiis inuu yimaado in la wada hadlo total marka hore maba eembo. doorashooyinku way socdaan. Hirshabelle waa aragtay qaabka wax u socday. Somaliland waa doorashadoodii waa tii
afrilaad ka dhacayso tii banaadir way socotaa maamul goboleedyadu waa tay soo hadleen anaga waxaan la shaqeynaynaa xukuumadda ra'iisul wasaare uu hogaamiyo dhammaantooda maanta waad aragtay wada hadal ka soo baxay aniga waxaan la yaabanahay in wada hadalkan iyo madaxweyne iyo asaga wax isqabsadeen madaxweynaha waqtigiisa wuu dhammaaday dee wuxuu sugayaa keliya in nin kale xil kale kusii wareejiyo laakiin ciidan mas-uuliyad anaa soo magacaabanayo wasiirka amniga la ii daayo maxaa keena gorgortan maxaa keena in laga hadlo wax laga hadla meesha maba yaallo waxa yaallo wax dastuurka uu ku qoran yahay qaanuunka uu ku qoran yahay qaanuunka haddii la xushmadaynaynin haddii ay noqoto weli istil maskixiin uu ka dhadhacsan yahay inuu weli madaxweyne uu yahay dee dastuurka hala tuuro hadha okay aniga madaxweyne anaa waddanka weli sii aniga weli xilib madaxweyneedkayga ma dhammaanin anaa waddanka hogaamiyo xataa hadduu madaxweyneedkiisa shaqayn lahaa asaga wuxuu yahay oo keliya saddexdan gole golaha fulinta golaha sharci dejinta iyo golaha garsoorka waxay ka soo dhammaado. How did you start your day? Even when the world in loo keeno dastuurku wuxuu dhigayaa awoodda madaxweynaha waa qodobka 9aad 17 qodob uu leeyahay meelna qaanuunka ma siinayo oo asagina wax magacaabiso xil ka qaado waxaan u arkaa foodo waxaan u arkaa in dalka dib loo celinayo dagaal iyo horse mugdi hadda horle in la galsho haddii waxaan rabaa aniga aan keeni waay dagaalaan furayaa way ujeedka wax loo jawaabo waa macsanta marka sax iyo qalad waxay ahaato kulli hadda waa doodii way dhamaatay labadii dhinac way hortageen waa in heshiin waayeen weliba 2 jeer ra'iisul wasaaraha waxa xiga waxa uma joojinay uu soconay howl maalmoodkiisa dastuurka uu siiyo oo uu faray ayuu qabanayaa doorashooyinka uu qabanayaa howl maalmeedkiisa wadanaya taliyaashiisa magacaabaya wasiiradiisa isku shaandheynaya wixii uu kala hagaya howlihii loo idmaday dastuurka u idmaday dastuurka lagu wada heshiiyay ayaa siinay 103 ayaa waxa la leeyahay xukuumadda xilgaarsiinta waajibaadkeedu wuxuu u yahay inay xil ka qaado xil magacaado howl maalmeedka ay wado doorashooyinka ay gaarsiisay xukuumadka laga gaarsiinayo madaxweynaha meel uu qaanuunka siinayo maba jiro alona nin aan sharciyan ku fadhinin iyo nin sharci ku fadhiyo haddii la yiraahdo wada hadlo maxaa ka dhalanaya su'aasha meesha taalo adigoo gurigaada laga haysto oo nin mooryaan ka haysto kugu fadhiyo gurigaada ka soo baxaba ma lacag isii wey waxaan ku guuraysi waxaan ku baxaysi waxa doonnimadana waa la iloowe wuxuu madaxweynaha u horseedaya waa mugdi hor leh baalkiisa inuu geliyo